tiim daryeelka timaha. Halkan waxaa ka haysanaa toon, karooto iyo baamiyo. Maanta way jarjaran yihiin. Marka jarjarayaan soo duwaamaho dadka waxaa xasuusinaa oo cusub in la wada jarjaraayo raacsiinaysid kadibna aad ku shubeysid. Markaas kadib biyo yar ku dareysaa, intaas ku shiideysaa. wax kale ma sameynin. waa soo jaray, waa soo raacsiiyay kadibna makiinadaas ku shubay. Marka waxaan xasuusinaa in timaha la soo dhaqaayo hadii ay wasakh leeyihiin shaambo lagu dhaqaayo, hadii ay nadiif yihiin markaas biyo ku soo qoynaysaa timaha. Waayo timaha markay qoyan yihiin wax qaataan. Marka saasa sameynaysiin haduu Ilaahay yiraahdo. Teeda kale timaha waa soo kala qaybinaysiin oo waa soo kuskusaysiin. teeda kale dad waxay soo dhahay jiraan maladuwa timaha bacmaal waxa timaha si ay kugu huraan si fiican wax kugu qaataan mar walbo hadaa wax marisid timaha bacal ugu huriyaa saas oo la socda waxyaabaha dhirta marka isticmaalay sidoo kale inaa hurisid aad u fiican tahay. markaas kadib wax yar saliid ku darsanaysaa. mar walba aan xasuusina hadii ama sameeysiin wax yar saliid ku darsanaysiin. marka hal saac camal ku haysan kartaa timaha. hal saac ay kula dhaafin. haday kula dhaafto hal saac bariyaysan kula dhaafin. marka hal saac meesha ugu fiican waa timaha wax ku qaataan. waxa fahmi weysaan soo waca insha Allah fariimaha xogaa in ciyo arko waa laga yaabaa. marka hadii jawaabtiina muxtaaj u tihiin soo waca insha Allah. dadaal wacana ni rajeyna insha Allah waan huwa timihiina inay noqonayaan timo caafimaad badan oo qurux badan.